كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي بقول إيو صدني اللحاد قيبتي أنو كغا ورميني ubadka iyo baraha bulshada iyo markaa marxaladaha ay ku jiraan marxalad kasta ay ku jiraan isla markaa loo dhaqmayo markay noqoto dhinaca waa maxay markaa internetka. waxaynu ku jirnay marxaladda markaa 15 markay soo gaaraan ilaa marxaladda waa maxay 17 waxaynu ka warrami doonaa isla marxaladii iyo qaabka waa maxay loo dhaqmayo. waxa la yiraahdaa markay ku jiraan 15 ilaa markay wixii ka sareeyay ilaa 20 ka gaarayaan waxa markaa muhiim ah la yiraahdaa markastaba waa maxay la socodkooda markaa inaa maxay aad looga warhay maadaama waa maxay isdareensiinayaan markaa inay markasta madax bannaan yihiin kuwa waxa muhiim ah la markastaba macna waa maxay inuu maxay la socdo markaa waan laga mooganaan oo waa maxay ubadkay waa maxay aan cidlo lagu sii deyn markaa. waxa kale waa maxay marxaladda marka lagu jiro waxaad aad ugu noqonaysaa insha Allah tacaala oo iyadana muhiima in looga sheekeeyo casharadeen ka soo warranay ubadka iyo xumaanta markaa waad ku noqonaysaa waxaad ka heli doontaa markaa casharada markaa ka soo sheekeynay macnaha ubadka markay qaan gaarkiin looga sheekeeyo calaamadii markay qaan gaarayeen la isku garan lahaayeen iyo qaabkii markaa waa maxay markay markaa dhiigagii ku yimaadaan dumarkii raggii oo kale markay qaan gaaraan sida maxay janaabada iskaga kor qaadayaan casharada markay da'da ku jiraan baynu aad uga soo sheekeynay ubadka qaybta qaan gaarka ayaa markaa waa maxay insha Allah tacaala ka heli doontaa. marka marka da'da la soo gaaro waxyaabaha kale marka waalidka looga baahan yahay waxa kamid ah oo in waalidku ubadka ay u sheegaan baa la yiraahdaa ko waxa kamid ah baa la yiraahdaa internetka marka dhibaatooyinkiisa uu leeyahay marka iyo waxyaabaha marka xunxun ee aan wanaagsanayn ama xaraan tahay marka la soo gelinayo in wax marka ay maxay ay ka fogaadaan. ko waxa kale marka waalidka looga baahan yahay marka in loo sheego macnaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka waa maxay inuu amray inay waa maxay macnaha aragooda xubnahooda marka waa maxay taranka iyo waxa maxay marka ay ilaaliyaan marka oo marka loo sheego macnaha meesha ugu weyn marka ishii waa maxay ku dhacaan oo kale sheeg kadibna maxay maxay qalbiga marka waa maxay uu si waa maxay gaarayo marka ama xawaastii marka waa maxay wada saameynayo marka waa maxay sida maxay loogu sheego casharadeen ka soo sheekeeyay marka inay cawradooda asturaan indhahooda qariyaan waxaasna maxay marka waa maxay aad uga warramaysaa marka. waxa la yiraahdaa marka marxaladda marka inta soo yar dhaafaan waxay dhaha markay soo gaaraan sarhaan da'da 20 marka ay ku soo dhawaadaan iyo wixii ka sii sareeyana marxaladda waxa la yiraahdaa marxaladda marka ay noqonayaan marxalatul mustaqilla nadar al-i'timaad macnaha marxaladda isu arkaya baa ninkan maxay inuu toos madax bannaan yahay baa la yiraahdaa. marka marxaladda waxa la yiraahdaa waxa la sameeynaya waana waxa la marxaladda marka waxbarashada marka waa maxay toos ka xidhan maxay marka uu gudageliyo marka uu xusalahan ama jaamacad ha noqoto ama salahan ama ha shaqeeyo ama waxay xaba kala duwan marka maxay qabto. marxaladda waxa la yiraahdaa isagoo waalidkii waa maxay qofkii ilmaha maxay qaan gaarka la socda ayaa waxa la yiraahdaa 5 xa ayaa marka looga baahan yahay waalidkii markaas ay ku dadaalaan 5 xa waxa weeye waa la koow al-hubb والحنان والحوار والحزم والحكمة. dadka ubadka qaangaarka ah in shanta maxaa lagu dhaqmaa loo baahan yahay. ko waxa loo baahan yahay al-hub horta in la jeclaado in la dareensiiyo qofkan qaangaarka ah is dareensiinayo inuu qof weyn noqday in wax kasta qabsan karo inuu madax barto in maxay in la jeclaado oo loo sheego inaad waalidkiisa tahay inaad dhashay inaad markaas jeceshahay aad ku faantid inuu halkaas soo gaaro halkaas soo gaarsiisay الحب بالله. تكلم على الحنان حنا محينا مركا عاد قدام قاتين مركا عاد سيسيد وحكستو مركا إساق كل عاسو قارة إن مركا محي أديقنا كسو قارين سواء كان عدبو هذا بلاوي أو كلا مسكولو باسكون كزور دمي أو كلا نونوشي إساق وسا إسوسو وشهاية إساق مجتمع وسا إسوسو وشهاية أنا قوت شو والله حاضو بهانتاي وحكستو بهانتاي أنا جاي مرك. تكلم على يد المهم كالحوار ubadka maxay in waxay la sheekaysto la fariisatid markuu waa maxay cuntada meel lagu wado dad weyn way cuntada maxay meel lagu wada cuno
in waa maxay la wada sheekaysto in waqtiyo waa maxay gaar oo xataa la sameeyo jadwal habeenka waa la shiraya habeenka waa la tashanaya guriga waxa laga qaban waxa laga sheekeynaya xiwaar marka in la sheekaysto waxbarashada muxuu jecel yahay muxuu rabaa maxaad dhaqan qabatid maxaad mustaqbalka maxay noqotid maxaad baran waxa in laga sheekaysto marka ta kale waxa weeyadana alxazm go'aan waxaan ugu tagi doonaa casharada dambe marka dhibaatooyinka internet leeyahay ku arki doonaayo dee waa maxay macnaha qofka qaangaarka inaad wax kasta aad farfarahan uga qaadi wax kasta la yimaado iska aqbashidina waa risk marka iyadan xasmigaaga inuu ku arko dee qof macnaha waa maxay aanu ku arkin iska wada furan aanu ku arkin qof wada xirxiran macnaha aad go'aan marka qaadan kartid ta kalena alxikma oo qof weyn wax kala garanayo aqal loo jaamac waxbarasho bilaabay dad iyagu kala duwan buu arkay umada kala duwan macallin wax kasta uu ark marka wax loo baahan yahay xikma marka waa maxay ilmaha waa maxay lagula dhaqmo marka lagula joogo markay noqoto hadaynu soo noqono dhinaca internetka markay noqoto togmiisa waxa weeye baa la yiraahdaa dee hadba waxa ku xiran tahay waalidka iyo isaga marka ula tacaamulayaan laakiin markastaba daa kastoo ku jiro waxa ku fiican baa la yiraahdaa in marka la sameeyo wax gaar ah marka ay wax ku wada akhristaan ay wax ku wada qortaan casharada ku diyaariyaan hadii salaad iskuulka looga baahan yahay kale laptop oo kale saada qurbo oo hadii iskuulka laptop looga baahan yahay iskuulka laptop ka sameeyay baarkiisa iskuulka kelima loo isticmaalo aan wax kale marka maxay aan lagu qaban hadii marka laga fursan waayana waxay dhahan maalintii ilaa 4 saac ama 3 saac ugu badnaan waa in la siiyo marka hadii aad soo yar weynaado oo kale yiraahdo 4 saac isticmaal waxa maxay in sha Allah taawun weyn ka warami doonaa markaan sheegno dhibaatooyinka qaabka loo xaliyo internetka banu eegi doonaa siyaabo wadka wax loo kaantarool xagaas in sha Allah taawun waxaan ugu tagi doonaa casharadaas waxaan ku soo koobay in sha Allah taala qoriyo waa maxay maamo waxay hooyo ay waxay ga warantay waxay igu tiri waxay dani ubadkayga markay macnaha ama internetka ka warramaysan waxay markay soo gaaraan macnaha daada markii waxay iskuulka ay bilaabaan primary-ga markii ilaa high school waxay tiri mobile iyo laptop waxba ma siiyaba oo Soomaaliyeena joogan dalkii markaa tiri ama gabadhaas ama ilmahaas waxay tiri ha ahaado primary ku jiro wada 5 sano 6 sano waxay tiri mobile uma iibiyaba laptop waxa xasan xataa sheegin waa markuu soo gaaro high schoolka 4 sano markuu soo gaaro dadka weyn oo dhowr 10 ka sheekeynayaan waxay iyadana mar kaliya waxay tiri waxay tiri hablahayga in madaxda waxay tiri midna waxay tiri uma iibin bay tiri mobile waxna u iibin bay tiri waxay tiri maalinta uu high schoolka dhameeyo ayaa waxay tiri marka uu jaamacadda u bilaabo waxay jaamacadda casharadii iyo waxa yimaadaan ay tiri mobile u iibiya ku dhaha internetka waxa furo halkaas sameeyay waxa sameeyay wada sheega maalinta ugu horeysa baabada waa arkay ubadkeeda waxay dhan markay iskuulada noqoto kuwada yar hadda waa maxay aad soo korayay iskuulada waa maxay iyaga ugu sareeyo hogaamiya markay noqoto iskuulada kuwa sare secondary marka la eegona marka la eego ama kaalinta koobaad ama kaalinta labaad meelahaas waxay galaan marka xafladda soo qabanaysa walaal arko iyaga ugu sareeya marka kuwa kana jaamacad bay ugu jiraan iyaguna ma sha Allah way qayb kala duwan oo dhigtaano dad aad mustaqiim oo hadaad marka u toosan oo runtii aan ugu helay aad ula dhacay weeye markaan ogaaday to reason-ka ama sababta ugu weyn oo ubadkan sida waa maxay ka dhigtay waxa weeye baan ogaaday ubadkaasi ilaa markay dhashaan ilaa inta secondary ka baxayaan yani wax internet-da wax technology wax social media aanay is aragba waana isticmaal waxba aanay ku lahayn marka aad marka waxay horumareen intaasna halka waxa noogu dhamaadeen marka marxalad kasta iyo waxyaabo marka waalidka looga baahnaa ubadka Allah marka subhanahu wa ta'ala inoo toosiyo Allah inoo hadiyo dariiqada Allah waa maxay inoogu toosiyo waalidkana Allah inooga dhigo marka waalidka ubadka waa maxay la dadaala markasta waa maxay ka warhaya maadaama lagu jiro zaman iyo xilli marka iska adag inaasana ku soo koobayna wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam